anaga ujeedkanaga waad ogtihiin waxaan soo marnay degmooyin fara badan ee gobolka Gada howlaha iyagana waxay ku aadanayeen xasilin iyo isku xirka maamulada saad ogtihiin waxaan ku guuleysanay ama dhib badan loo maray degmooyinka in la isku xira degmooyinkii dhammaan waa la isku xiray waxaa noo dhiman oo keli ah ceel waaq oo ayadana qadka ku jirto oo dadkeeda ay taagan yihiin oo ina sugayaan insha Allah ta'ala hadii la raal ka noqdo ayadana waxaan jecelnahay isbuucan gudihiisa inaan tagna maamulka aan soo sameeyna saldhigga booliiska ciidanka joogin aan soo hagaajino kolley waxaan hadda isugu yeernay degmada Luuq odayaasha joogay dhammaan waa horjoogayaalkii beelaha degnaa degmada Luuq dadka halka hadda fadhiya cid kasta oo degneed suldaankeedii ama nabadoonkeedii ayaa hadda fadhiya halkan waxaan door siinaynaa saad ogtiinba markaan maamulada isku xirnay odayaashaan rabnaa inaan door siina waxaan samayn rabnaa degmo kasta oo tagna guddi guurta la yiraahdo inaan ka sameeyna oo xibnahooda ay ku salaysan tahay beel kastaba guud ahaan 7 degmana inaan ka sameeynaa rabnaa degmada Luuq kaliya maahan degmo kasta oo tagna waxaan rabnaa guddi guurta la yiraahdo inay iska qabata oo diyaarina oo maamulka ay hagaajiyaan degmada joogo markaan ceel waa hadda dhisnaan waxaan rabnaa dib u heshiisiin deegaanada Jubbaland dadka degaa inaan ku qabana xarunta gobolka Gada ee Garbaari dhammaan odayaasha dhaqanka ka qayb gali doona oo beel kasta hor taagan dib u heshiisiintaas waa Jubbaland oo dhan markay noo dhamaatana waxaan rabnaa bu'aala sida lagu qaban lahaa hawsheeda in loo istaago wayna diyaarsan tahay hadda qabashadii bu'aala waad ogtihiin waa dhul deegaankiisu uu bilaaran yahay dadka degna ay ku rafaadeen nolosha ay reer Gada u baahan yihiin amal u baahan waa la go'aansaday dawladda inay qabato Jubbaland meesha la yiraahdo bu'aala annagana maxaan ku raaddaa waa go'aansanay inaan qabano reer Gada haddaan nahay maadaama dhulkanagi uu xor yahay dadka waxay u baahan yihiin cadawga in laga kiciyo naf iyo maalba inaan ku bixino oo maxaan ku raaddaa bu'aala la qabta ayaa loo diyaarsan yahay odayaashiina dhaqanka door baad ka leedahay naftiina sida lagu qaban lahaa bu'aala marka la qabtana waxaa la rabaa in loo istaaga doorashada xor iyo xalaashaheed oo caadigeed oo Jubbaland ka dhacaysa doorashadaas annaga waxaan rabnaa inaan siina doorka xulitaanka xildhibaanada odayaasha dhaqanka degan deegaanada Jubbaland degan lama rabo sida Axmed in la yiraahdo beel walba 3 oday 3 nin iska soo qabata in la yiraahdo lama rabo annaga go'aankan wadana oday kasta oo beel hor taagan ninkii xildhibaan u noqon karo beesha ayadoo asagu ka dhashay inuu كان رارنا لكن سيد أحمد إن لي هذا سدح من كسوق بباش هذه عدالا كيننا وأديك عالم كيننا سدح دلني وحاول أديك كلام كاسو رح قبلنا إنه باشي أديك كلام نوضة ومرنا وسمينا إن لي راد أنا ديار ومنين وياشوا على صدمر كتوبات دتك يكونوا اليوم عرفنا الدور كودنا سينا deegaanada aan joogna dhan waa maamulka degmada cabashiisa ay soo gaaraysaa dhanna waa ciidamada xasilinta qayb walba ha noqdeen oo gobolka jooga madax xasilinta ay soo siinayaan wixii rabood oo ka qaldan hadii aan ilaa waaya dhan maamul iyo dhan amni wal soo siin kara bakaal hadii aan ilaa waaya hadii aan ilaa waaya maxaa ku raadaya bakaal wal soo siin kara hadii asaga la waayana wal soo siin waxa kale oo nagu soo kordhay oo hadda maanta ilaahay mahadi ah taliyay qaybta booliiska gobolkana waa nagu soo kordhay taliyaha guutada iyo taliyaha xasilinta iyo anagu barsaas gobolka meesha joognay waxaan ugu soo kordhay taliyay qaybta maxaan ku raadaya booliiska gobolka Gada oo nasiib u yeeshtay markuu sidaan u soo istaagayba in saldhigyadii la geeyo ciidamadii maxaan ku raadaya saraakiisha booliiska oo sharciga ay shaqeynaysa sidaa taliyaha xasilinta uu sheegay dhammaan degmooyinka aan soo marnay waxaan geynay saldhig kasta taliya booliis oo darajo wata oo wuxuu geysta lagala xisaabtamaya wuxuu hagaajiyana lagala xisaabtamaya dhammaan degmooyinka hadda noo dhimana waxa la geynaya ayagana saraakiil booliis oo u duugaan galsan oo hadda loo wadaa degmo kasta oo sargaal booliis uu sii joogin hadda la geynaya waxa kale oo lagu guuleystay oo gobolkii ku soo saaciday oo aad u wanaagsan ciidamada isugu yiraahdo oo hadda shaqo wanaagsan wada sida Luuq iyo meesha la yiraahdo Doolow iyo balad xaw iyo bareer waa ka sameeyeen
waxaa noo dhiman ceel waaq iyo buur dhuuba iyo garbaari ayagana waa lagu wadaa in la geeya loo xilsaaray hadda bakaal oo hadda ciidanka qorniin ku wada oo hadda maxaan ku rahaa taliyaasha salagyada ka garab samaynayo ayagana nabad sugidda raba in degmooyinka geeya degmaha nabad sugid lehena dimaba noolaan kartaba waxaa kaloo noola sheegay amaba aan farxad noo ah dawlad markay carrad ku baahda ama ay qabsata waxay leedahay nabad sugid badan oo annaga aanan ka warramin bulshada meesha fadhidana aysan ka warramin degmo kasta hadda waxaan ognahay ugu yaraan ilaa 15 ama 20 ganacsati culummada odayaal soo dhex yaal inay joogaan oo degmo kasta sababtoo annaga hadda mas'uuliyiinta waxaan nahay gobolka waa soconaa raboodka markaan dawladda siina wixii degmada ku qaldan oo kale waa noola sheegaya yaa sheegay marka waxaa sheegay nabad sugidda na dhex degan oo odayaasha wadagarka guduudan oo qaarkood ay dawladda qaadato marka dawlad marka wanaaggeeda waxaa lagu garan karaa inay carrada ku baahday inay nabad sugid leedahay waana horumarka koowaad waaye dhallinyaraa isaga jirto nabad sugid qaada la siiyey odayaalaa isaga jiro waana dawladda wanaaggeeda waaye dawladda markay dhulka ku baahday waxaa la dareemi karaa in nabad sugid aysan dadka shaqaynayo rasmiga oo la garanaya aanan ahayn inay leedahay ayadana waa guul caadi waxaan rabnaa marka odayaasha dhaqanka maadaama uu dhow yahay in la qabta guddi guurti ah maadaama ay dhow tahay in la qabta dib u heshiisiin beelaha degan Jubbaland oday dhaqan oo kastoo beelashiisa hor joogo inuu sii diyaar garoobo in guddiga laga qabanaya degmada Luuq ama degmooyinka oo aan ka qabanayna ay wada diyaar garoobaan inay u diyaar garoobaan dib u heshiisiinta sida xarunta lagu aadi lahaa u diyaar garoobaan xildhibaanadooda siday u soo saaran lahaayeen inay u diyaar garoobaan intaba ayagaa laga rabaa maaha in lagu mashquulo nin laba degmo jooga degmadii saddexaadna ay tahay Kismaayo war uu sheegay in lagu mashquulo lama rabo laba degmo ay joogaan saad ogtiinba degmadooda saddexaadna waa Kismaayo waa Nairobi Axmed iyo ragga xagga jooga waad ogtiin waxay ku dambeeyaan hadda oo dareemaysaan waa laba degmo degmada saddexaad oo marjac u ahna waa meesha la yiraahdo Nairobi waa in lagu mashquulo marka lama rabo waxba nooma dhexeeyaanba heer waxaan gaari doonaa hadda annaga cidda dambiile waxaa gacanta la gaari doona insha allahu tacaala oo qaban doona dawladdana annaga wakiil ugu ah waxaan ku soconaa Bu'aal ilaa Kismaayo hadda gado waa naga afjarmad waxaan soo qaban doonaa nimanka ku haray oo nabadiidka oo qaranka Soomaaliyeed burburinaya saddex nin annaga qabashadooda noo dhiman haddii la raali ka noqdo waa Axmed Maxamuud iyo Cabdirashiid waa saddexda qarannimada Soomaaliyeed diidan waay waxaad maqlayseen hadda raad inay hadlaayeen oo ilaahayeen annaga maxaan ku yidhahdaa deegaanadii waa la qabsaday diyaarad waxaan soo wadnay maxaan ku yidhahdaa maxamuud wuxuu maqlay diyaarad waxaan soo wadnay daawo ee saaki oo coronaviruska loogala dagaalamaya xarunta garbaariyaan u soo wadnay maamulkii alla anqalaabi maamulkii alla qabsaday dawladda waxaan ka rabnaa maamulka asaga inay soo celiso bal doqonnimada ku fikiraa bal fiirninkaas adi diyaaradda saaki markii guddoomiyaha la qabanaya imaanaysa maxay mar hore u imaan weyday meeqaasan oo maqnay beenta waxaa weeya barkeed waxaa la rabaa in xilliyada soonka marka la joogo la iska yareeyaa la rabaa ciyaalka yaryarka xataa loogama sheekeeyo waxaas gado waxba looma haynin nimanka la yidhahdo Jubbaland waxba gado umaysan haynin xaqiiqda marka laga hadlo Jubbaland niman baa xukumay halkaas ay jirtay dawladda waxba kuma harsaneen oo dhaqaalaheedii iyo wixii akoonkeedii ku jira waxay ku dhamaadeen Kismaayo gadana inay wax ka soo gaaraan waa loo diiday dawladda marka uma danaynaysa dad akoonkooda inay wax isaga wada dawladda waxay ugu talagashay waxay nimanka ayaga gaarsiisay inay bulshada gaarsiiyaan reer Jubbaland bulshada ayada waxba ma soo gaarsiinaynin way iska fahamtay marka dawladda akoonka asaga way ka joojisay dhaqaalihii gobolka gado wixii dhaqaalo loo hay ama Jubbaland hadda oo dhan loo hay gobolka gado qaybta u lahaa way ku soo socotaa hadda waa loo soo wadaa waxaad ogtihiin malyan lacag in lagu deeqay maandhaweed 500 waxaa la siinayaa dhankaas oo maxaan ku idhahdaa nimanka la yidhahdo hadda gobolkaa degan maxaan ku idhahdaa oo kasii baxaya kolley waxaa loogu dhiibi doonaa bulshadoodii oo odayaal guddi oo laga qabtaa loogu dhiibi doonaa qaybta gobolka gado u lahaana waxay soo aadaysaa gobolka gada waxaan ku guulaysanay hadda dawladdii waxqabadkeedii
sida ugu dhaqso badan in ay ciidamo mashaaric ku talaasha gobolka Gada in maxaan ku raahdaa gaadiid ay keenta intaba guul waay waxaa kaloo ku guuleysanay iskuulla dugsi sare ah ay dhisaysaa deegaanadii dhammaan ay ka dhisaysaa hadda dawladdii oo maxaan ku raahdaa la qaatay qandaraasyadii oo hadda bilaabanaya waxaa lagu guuleystoo kala in saldhigyada la dhiso hadda kii baar dheer waa la dhisiyaa oo annaga soo dhagax dhignay kii ceelwaaq waa la dhisiyaa oo annagoona joogina hadda dhismaha ku socdaa kii maxaan ku raahdaa garbaari waa la dhisiyaa kii buurug hadda la rabaa in la dhiso la diyaarinayaa midka luuqna in la dhisaa la rabaa waa horumarka kale oo dawladdu ku guuleysatay waay waxaa kaloo hadda rabtaa inay dhista waddo laami ah oo ka bilaabanaysa halka hadda aan joogno ilaa Balaxa oo galaysa oo luuq ka bilaabanaysa ilaa Balaxa oo galaysa intaa oo dawladda maxaan ku raahdaa nagu soo kordhinaysa waxqabadkeeda koobaad way noo bilaabatay inuu nagu sii baahana waan jecelna haddii ilaa raalli ka noqdo dhaqaalihii ku bixi jiray dhinacaas wuxuu soo maray hadda kadib dhinac hadda aan joogno gobolka Gada wuxuu laayay soo mari doonaan waxaan rabnaa marka odayaasha deegaanka ee dhaqanka odayaasha inta badan waxay noqdeen siyaasiyiin doorkooda dhaqan inay si sax u ilaaliyaan horumarka gobolkooda inay si sax u ilaaliyaan in qof mas-uul ah oo danihiisa gaarka wata aysan raacina la rabaa inay qabiilka iyo waxyaabaha loo shawriyay la iska saaraa la rabaa Soomaali hadduu qabiil wax taraya shabaab oo hal qooqan wata ma soo galeen oo ma qabsadeen dalkan markii la qabsanay waxaa joogi shabaab waxaa joogi ciidamo fara badan oo ciidamo qabiilaad ah degmada hadda aan ku suganno luuq 500 oo askari ayadu ku sugan tahay 700 wax ma aqaanay ayadu ku sugan tahay hal qooqan oo qasnad wata soo gashay oo afduuban qabiilka fara badan oo dagaalamay qoryaha wata qoryaha hoos laga xaraystay nimanka ayaga ay unbaa usha dadka la dhaxtaa waxaa heer la gaari nin gurigiisa ku jiro inay u la dhacaan oo masaajidka aad la yiraahdo oo gurigiisa ku tukaday urwaa tukaday salaad lagama aqbala masaajidka aad oo guriyaha dadku u galaan banaanka fiyaala iska dhaaf qabiil marka waxba gali maaya dadkan wuxuu ilaahay ku mashquulay shayga la yiraahdo qabiilka odayaashii u galay dhalinyaradii u galay islaamihii u galay ciyaalkii u galay waxaa la rabaa marka dadkaas inaad adinka ka saartaan qabiilka waxaa horumar lagu gaari karaa in la isku xiran yahay dawladda Soomaaliya la garab istaaga kaliya dawladda Soomaaliya cidda garab istaagta way guuleysanaysaa qofka aanan garab istaagina hadee waxaa weeye waa nolol qof rabo maaha qof nolol rabo maaha waxaan filayaa marka deegaanada inta badan gobolka Gada weligeed dawladda oo dhan ba lagama macaaradin dawlad Soomaaliya oo dhisan gobolka Gado macaarad oo dawladdan waa diidanahay dawlad kasta hadda la soo dhiso bal fiiri gobolka Gado banaanbaxa oo dawladdan waa diidanahay lama wili arteen waa ma jirto gobolka Gado wuxuu ku fiican yahay dawlad kasta oo dhalata waa taageersan yahay wuu taageersan yahay hadday wax qabad leedahay haddaysan wax qabad lahaynba waxaan rabnaa marka odayaasha doorkeeda inay siiso dawladda Soomaaliya inay soo xushaan xildhibaanadoodii waxaad ogtiin xildhibaanada federaalka ah odayaashii soo xulay kolley halkaan ay fadhiyaan beel walba nabadoon kor taagnaya wuxuu soo xulay hal xildhibaan oo qabiilada uu ka soo dhex bixiyay xildhibaanka isaga ayaa shaqaynaya tan hadda la dhisayo Jubbalandna beel kasta xildhibaanka odaygeeda inuu ka soo bixiyaa laga rabaa oo annagana aan ku xurmayno garab istaagna ayagana u diyaar garoobaana laga rabaa waxaa laga yaabaa nimanka hadda baxay oo madheero dhex galay oo burcadda ah dad telefono u diro hamiga habeenka siiyo ama la sheekaysanay jiraan waa dhici kartaa kuwaas dalka kuma soo noqonayaan niyadda laga saara nimanka ayaga dalka kuma soo noqonayaan ha laga sheekaysto kaliya Jubbaland cusub sidii lagu dhisan lahaa beelaha Gada degan siday u heshiin lahaayeen maxaan ku raahdaa odayaasha dhaqanka siday dadka maxaan ku raahdaa dadka isugu keen lahaayeen dhamaantood dib u heshiisiinta Jubbaland sida looga qayb qaadan lahaa intaa kaliya lagu mashquulo